waa markii ugu horeysay magaalada Istanbul laga hirgeliyo markaz caalami ah oo lagu magacaabo Bruza kaasoo lagu barbaariyo caruurta diinteena suuban iyo waliba dhaqanka Soomaaliyeed isla markaana lagu barto luqadaha Soomaaliga, Carabiga, Ingiriiska iyo waliba Turkiga. qaybaha kala gedisan bulshada ayaa lagu marti qaaday daahfurka maxadkan iyadoon ugu horeyn uu goobta lagu daahfuray aayadaha Quraanka Kariimka kaasoo uu akhriyay Suhayb Ahmed Abdulqaadir. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. شيخ عبد الرحمن الشيخ نور ومامولها مركز كان أهنا أساسها حرونتا بروز. أما بعد ولا ليال افتتاحها هرتبا ألف كأن كبلابة أخيارتنا تنقلبت إنده هيك هرجوكتا أرضينا يا شيخة أنت أولده سي 40 كحديث كي أنت فقه أدو فقاتيبا إذ الكيم الدمان السلام عليكم مركو هري وانكم هدعني وانكم هدعينا يا دمان ذاك سوق قلي حفلة فرتان كمركز كبروز walaalkay inoo xiriirinayay oo noo bilaabay oo su'aalaha idinka aad qabteen oo inoo weydiiyay yiri bal aan ka jaahil baxno markaaskan hadii aan ku guda galo waqtiga oo yar awgeed si aan faahfaahin buuxda u siiyo una koobo waqti dheer buu soo shaqeynayay laga bilaabo 2009kii buu shaqeynayay caalamka meel kala gedisan oo ka soo shaqeeyay ay kamid tahay qaaradda Yurub iyo Afrikaba maantana waxaan rajaynayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala in halkan ummadii Soomaaliyeed meel kasta u guurto la guuraa markaskan meel kasta degto uu la degaa halkan markaan iimaanaynay oo soo degayay ama anigu shakhsiyan aan iimaanayay fikradeedu ma ahayn markas inaan ka asaaso waxay dana khaasa waalid xanuunsan Allah caafiye baan u imid inaan halkan ku haysto ka bacdina aan meeshii aan ka imid ku noqdo laakiin baahida jirta iyo deegaanka sidii uu yahay iyo bulshadan waxa dhibaatada ka haysata markaan arkay waxaan ku khasbanaaday inaan ummadda u fakaro marka waxaan ku khasbanaaday sidaas oo kale inaan raadiyo hooy ama goob ummaddu ay isugu timaado waxaan ku khasbanaaday goob dadku ay ku kulmaan waxaan ku khasbanaaday inaan raadino goob caruurteena aan wax ku barano ku sheegayno ugu sheekayno quraankii ku barno dhaqankeena ku barno af Soomaaliga ku barno culture-kii aan ka tagnay aan dib ugu soo celino meel aan isku wareysano dhibaatooyinka qurbahan uga imaanay meel aan uga badbaadno maanta anagoo qurba sii joogna si aanan u dareemin qurba darteed baa markaskani u taagan yahay Bruuz. gudoomiyaha jaalida Soomaaliyeed ee wadankani Turkiga mudane Sheekh Maxamed ayaa bulshada ugu baaqay inay ka faa'iideystaan xaruntan Bruuz lagu magacaabo isla markaana laga hirgeliyay xaafadda Başakşehir ee Istanbul. xaafadan Başakşehir runtii iyo Istanbul yani runtii waxaan dhihi karnaa waa ishraaq ama waa iftiin u soo baxay oo la rabo in ilmahooda ay ka faa'iideystaan tarbiya islaamiya ay ka faa'iideystaan تحفيظ القرآن الكريم أي كيف أديستان معلوماتك أنت نبغى إن شاء الله كل معلم كانوا لما يسترد دونا ولكن مدرسة نقطة مدرسة شاملة أو كيف أديستان سد أحد حافظات وكتال حافظان ويسوي مادان ودريم كرتان وقت والو بحيي ولا شرعيي دولة دلقسو شرعيي مركوا وح يعني ضد إسحل قامي أي سمايان مركا إن شاء الله وحن رجينا waalidiinta iyo aabbayaasha iyo dariska iyo reer Istanbul inay ka faa'iideystaan madrasadan qiimaha iyo qaayaha badan oo halkan laga furay oo ah madrasadii ugu khayrka badneed oo la furo khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu ulihi nabiga alayhi salatu wasalaam waxa idinku ugu khayrka badan qofka quraanka barta dadkana bara marka aad iyo aad baan runtii idinku dhiirigelinaynaa inaad ka faa'iideysataan madrasadan qiimaha iyo qaayaha badan oo ardaydu ay aad ugu soo shaqeeyaan ay ka soo shaqeeyaan maartay Cabdiraxmaan iyo tiimkiisa ay ka soo shaqeeyaan marka waxaan idinka rajaynaynaa inaan noqotaan kuwa ka faa'iideysta jaalida wadanka degan xaafadan khaas ahaan runtii dad isku dayo badan baa jiray la isku dayay oo lagu guuleysan waayay marka Ilaahay fadligiisa iyo raxmadiisa yani qof walba wanaaga dad baa bilaaba marka dadka bilaabay waa loogu mahad celiyaa dadkii kale ee madasha hadallada ka jeediyay isla markaana codbaayaha qaatay ayaa waxa isugu jireen culumo waxgarad iyo waliba ganacsato waxayna sidoo kale aad u soo dhaweeyeen in Istanbul ay yeelato xarun noocan ah ugu horeyn caruurta iyo haweenka in naar laga badbaadiyo habkeena loogu badbaadi karaa tarbiyada islaamka iyo kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala in la xifdisiyo la jeclaysiiyo
maxaa la yidhaahdaa lagu booriyo inay xifdiyaan yacni ay xifdiyaan ay ku camal falaan taas ayaa naar kaliya ay ugu badbaadi karaan walilaahi alxamdu ilaahi bay baan u sugnaatay waxaana loo furay meel u qalanto oo qur'aankii ilaahi subxaanahu wa tacaala qiimaha badnaa alladii laa ya'tiihi albaatilu min bayni yadayhi walaa min khalfih meel qurux badan oo qur'aankii lagu baran karo yaa ilaahi subxaanahu wa tacaala noo sahlay idan waxaa waajib dusheena ku ah in aan carruurteenna aynu keenno si xadiiskii hadda walaalkeena sheekh maxamed uu sheegayay idaa maata ibna aadam inqataca camaluhu ilaa min halaath si hadhow markaa dhimatid ay kugu soo duceeyaan ay kuu dhahaan ilaahayow aabbahayga iyo hooyadayda u naxariiso waxaan u mahad celinaynaa walaalka oo inoo suuro geliyey inay bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Istanbul si guud iyo aagan si gaar ah inay ka faa'iideystaan ama u asaasay xarun diinta iyo si guud culumta ay ku baran karaan marka la yiraahdo waxa laga hadlayaa ahmiyadda tacliinta ama muhiimadda tacliinta leedahay waxa ugu muhiimsan oo lagu soo koobi karaa hadana ummadda Nabi Maxamed waxaan ku abtirsanaa Quraanka suuradii ugu horeysay ee Quraanka soo degtana waxay noo muujinaysaa ahmiyadda ay leedahay tacliinta iqra bismi rabbika alladhi khalaq inta kadib waxaan u mahad celinayaa dadkii isku taxallujiyay oo ugu horeeyay Sheekh Cabdiraxmaan iyo tiimkiisa inay noo suurto galiyaan markaskan aad u qurux badan inay ummadda Soomaaliyeed ee Turkiga ku noqon gaar ahaan Istanbul ay uga faa'iideeyaan arinta maadaama waqtigu soo kooban yahay waxaan jeclaan lahaa inaan in yar ka bidhaamiyo ahmiyadda ay leedahay in mujtamaca loo adeego nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay kullukum mas'uulun an ra'iyatihi dhammaantiin waxaad tihiin mas'uuliyiin qof kastaana wixii loo diray oo mas'uul ka ah waa la weydiinayaa runtii waa u mahad celinayaa dadka dhalinyarada ah oo dadaalka intaan la egsameeyey oo ugu horeeyo al-ustaaz Cabdiraxmaan oo runtii nin dhalinyaro ah waxaan ognahay inuu dalka u yimid safar inuu ku ahaa waalidkiisu xanuunsanna uu keenay ninkii asagoo masaafira oo waalid xanuunsan wada ku fekeray inuu mashruuca intaan la eg sameeyo waxaad dareemi kartiin waxa laga fila karo markuu salka dhulka dhigto markuu dego oo degaan noqdo waxa laga fila karo ayaa dareemi kartaan asagoo masaafira oo waalid xanuunsan wada hadduu intaan ku guuleystay inuu ummadda u fikiro waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala fi mustaqbal qariib inuu wax badan oo ka ballaaranna insha Allah ta'ala uu ku fikri doono intaasi kadib waxaa maqaska gacanta laga saaray si uu u jaro xariga furitaanka markaska Bruza gudoomiyaha jaalida Soomaaliyeed ee wadanka Turkiga mudane Sheekh Maxamed oo garbihiisu ay joogeen waxgaradka Istanbul Salman Jamal Saeed TV-ga caalamiga Universal magaalada Istanbul.